السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كلمات حوك سابسن يحي قطبت كحات ليسا مهمة إليهن دكتردا. انت دان قد قلن عشركا حديات كوسبتا هاي channelكا سبسكرايب سار حدان كوس بان لايك سار ونسي شير قرأي أصحاب تاذا كالي توبيك قطبت أما موضوع about كسابسن the important muhiimada of doctors dhaqtarada. I wanna mention waxaan rabaa inaan sheego some sweet orientis hogo kalmadooyin macmacaan concerning ku saabsan the important muhiimada of doctors dhaqtarada. As an opinion of mine, fikrad ahaanteyda doctors dhaqtarada are cool way degan yihiin. They spend waxay qorash gareeyaan their 24 hours 24 saac helping people inay dadka caawiyaan and saving iyo inay badbaadiyaan lives nololo. Also maadaama Allah saves something uu aleh wax badbaadiyo, there can be waxaa jiri kara many other jobs shaqooyin kale fara badan better ka fiican than doctors dhaqtarada. Balse I think waxaan u maleynayaa doctors dhaqtarada ayaa the most important people dadka ugu muhiimsan in the society bulshada dhexdeeda, because maxaa yeelay they care waxay ka taxadiraan and treat ayna daaweeyaan what is wrong wax ka qaldan with our body jirkeena. So sidaa darteed I hope waxaan rajaynayaa peace and blessing naxariis iyo nabadgelyo to our doctors dhaqtaradeena.